Soomaaliya email walbo aad joogtaan waan idin wada salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib Axmed Maxamed Kaarshe waxaan si gaar ah ula hadlayaa ragga qaar ee u fududaatay in dumarka qaarkood qalbiyadooda ay degaan hantaan boqorka qalbigaasina ay noqdaan shaleeto ismiina aqoon waad baratay xiriir baad la yeelatay wixii jira ayaad u sheegtay run iyo been intaba ha ahaadaane inta aad u sheegtay kadib waxaa dhacday in ay si dhaba ku jeclaato in ay markaasi garan weyso xaaladda ay ku sugan tahay in ay dareento jacayl xawligiisa midka ugu daran in marmarka qaar ay murugooto shalayto farxad ayay ku jirtay kaligeed ayay ahayd noloshana waa ay u macaaneed balse meesha aad ugu soo kordhin lahayd nolol aad u qaaliya waxaad nolosheeda ku soo kordhisay murugo war ma kula tahay murugada aad ku soo kordhisay birita inaad adiga ka badbaadayso ma kula tahay sida aad ugu dheeshay birito in lagu dhaafayo waddada maanta ay iyada martay birita adiga marayo waa ku jeclahay ayaad leedahay ma garanaysaa macnaha jacaylka ereyga waan ku jeclahay halaha kaliya uu ku fadhiyo miyaad taqaanaa af kaliya ayaad ka baratay waa taqaanaa sida loo dhaho waan ku jeclahay maxaad u aqoon weyday sida markaasi loogu dhaqmo waddadeedana loo maro ereyga waan ku jeclahay maxaa kuu diiday walaashaa in aad wanaajiso maxaa kuu diiday sida ay kuu jeclaatay si ka daran inaad u jeclaato war heedhe maxaa kuu diiday in aad qalbigeeda sida aad boqorka oga noqotay aad qalbigaaga oga dhigto boqoradda qalbigaaga halkan kuma soo koobi karo runtii ceebaha fara badan ee ragga Soomaaliyeed qaar ay sameeyaan weliba kuwa aqligooda uu aadka u yar yahay ragga Soomaaliyeed ayaan si gaar ah ula hadlayaa walaalayaal xumaataha iga qaadanina waayo waxa iga hadashiyo waa waxaan idinka arkay waa wax aan ka arkay ragga Soomaaliyeed qaarkood in dhammaantood ma dhihi karo waayo waxaa ku jiro rag wanaagsan rag sharaf leh rag garanaya xiriirka wuxuu yahay rag ku eg hal qof kaliya qalbigoodana u ogolaanaya kaliya iyada oo kaliya inay ka dhex muuqato ragga Soomaaliyeedow weliba ragga qaar aqligooda uu yar yahay isbedela barta jacaylka wuxuu yahay ogaada xuquuqda uu kugu leeyahay qofka bini'aadanka ah baro nafsi wuxuu yahay wax badan ka fahan aqligaagana ka dhaadhici in birito ay ku sugayso waxaad maanta samayso